السلام عليكم daawadayaal halkani waa Garaa TV qodobada xilligani ku daawan doontaan wararkeena waxa kamida dowladaha turkiga iyo qatar oo ballan qaaday inay si wada jira u diyaarinayaan askartii ammga dalka kala wareeg lahayd ciidamada amisoon ee jooga Soomaaliya madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe oo diiday inuu tago magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya si loo dhameeyo xiisada ka taagan gobolka Gado ee kala dhaxaysa dowladda Soomaaliya dowladda federaalka oo si kulul uga jawaabtay hadal ka soo yeeray gudoomiyaha xisbiga mucaaridka u ciiday Somaliland Engineer Faisal Ali Waraabe kaasi oo ku aadanaa doorashooyinka Soomaaliya qareen u dhashay wadanka Kenya oo isku dhiibay maxkamadda dambiyada dagaalka ee qaramada midoobay gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Taabir Cabdi Maxamed oo fariin u diray mas'uuliyiinta dowladda federaalka iyo dowladda Ruushka oo ku hanjabtay inay faragelin doonto dagaalada Armenia iyo Azerbaijan iyo cabsi laga qabo iska horimaad dhexmara Turkiga iyo Russia qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan idin soo gudbin doonaa haddii Allah awood leh raalli ka noqday u diyaar garooba saaxiibayaal wararkeena oo dhammaystiran isku soo laabashaha bon mar kala daawadayaal halkani waa Garaa TV xasuusna haddii aad joogtid waqtiga salaada soo guda waajibka ee ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada videogan aynu ku bilowno daawadayaal sidaan idinkugu sheegay hordhaca wararka Garaa TV wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda Soomaaliya mudane Xasan Xuseen Xaaji ayaa magaalada Muqdisho kulan kula yeeshay safiirada dowladaha Turkiga iyo Qatar ee Soomaaliya Mahmed Yilmaz iyo Xasan Xamse Azad kaasi oo looga hadlayay taageerada labadaasi wadan ay siiyaan dowladda dhexe ee Soomaaliya intii uu socday kulankani ayaa diiradda lagu saaray iskaashiga xooggan ee ka dhaxeeya wadamada Soomaaliya Qatar iyo Turkiga iyo sidii labadaasi dowladood ay sare ugu sii qaadi lahaayeen dib u dhiska iyo qalabaynta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed kulankani ka dhacay magaalada Muqdisho oo la sheegay inuu ahaa mid ay dalbadeen safiirada dowladaha Turkiga iyo Qatar uguna yeereen wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya ayaa ujeedkiisu ahaa in ay ballanqaad mug weyn u sameeyaan dowladda dhexe ee Soomaaliya ballanqaadkani ay soo bandhigeen dowladaha Turkiga iyo Qatar ayaa ahaa mid ay in muddo ka wada shaqeynayeen labada dal kaasi oo ku aadan inay Soomaaliya u diyaarinayaan ciidamo dalka u dhashay oo ammga kala wareega ciidamada amisoon dowladaha Qatar iyo Turkiga ayaana si wada jira ugu ballan qaaday dhigooda Soomaaliya in ay soo saari doonaan ciidamo tayo ahaan iyo qalab ahaanba si toos ah ammga dalka ugala wareegi kara ciidamada amisoon ee haatan nabadgelyada u jooga ballanqaadkani cusub ee dowladaha Qatar iyo Turkiga oo saaxiib dowladda Soomaaliya waxa si weyn u soo dhaweeyay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya isagoo sheegay in ay mar waliba uga mahad celinayaan labadaasi wadan garab istaag ay u muujinayaan shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed safiirada dowladaha Turkiga iyo Qatar waxay sidoo kale xuseen in ay diyaar u yihiin in la sii laba jibaaro taageerada ay wadamadaasi siiyaan dowladda federaalka ee Soomaaliya haddii ay ahaan lahayd dib u dhiska ciidamada arrimaha ammga iyo dhaqaalaha dhanka kale wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay dadaal xooggan gelisay tayeynta diiwaangelinta iyo tababarka ciidamada xoogga dalka waxaana uu si ballaaran ugu mahad celiyay dowladaha Turkiga iyo Qatar oo uu sheegay in ay qayb ka yihiin guul kasto ay ku tallaabsato dowladda dhexe ee Soomaaliya dowladaha Turkiga iyo Qatar ayaa taageerada ugu badan ee ay siiyaan Soomaaliya waxa ay tahay dhinaca dib u soo kabashada ciidamada iyo dhinaca sirdoonka iyagoo arrimahaasi Soomaaliya dhinacyada dhaqaalaha iyo xilfadaba ka taakuleeya gudaha dalka Turkiga waxa lagu soo tababaray qaybo badan oo kamid ah cutubiyada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kuwaasi oo haatan lagu tiriyo kuwa ugu xilfada wanaagsan ballanqaadka Turkiga iyo Qatar ayaana ku soo beegmaya iyadoo dhawaan la isku diyaarinayo in Soomaaliya ay faarujiyaan ciidamada ajnabiga ah ee ka socda midowga Afrika isla markaana ay bedelaan ciidanka Soomaaliyeed وهجاج إداو ضيال مدحوينها مامل كجبلان أحمد مدوبة يديدي إنه تقوم مقالة أردي سببا يدل كإيتوبيا كدب فرين وقت مد رئيس الوزراء هدل كأسي أبي أحمد رئيس الوزراء إيتوبيا دكتور أبي أحمد
axmed ayaa ku howlan sidii uu xalin lahaa muranka ka taagan gobolka Gado ee u dhaxeeya maamulka Jubbaland iyo dowladda Soomaaliya iyadoo aan ciidamada dowladda laga saarin halkaasi si doorashada xildhibaanada loogu qabto degmada Garbaharey ee gobolkaasi Gado. dhawaan waxaa tagay magaalada Addis Ababa ee xarunta wadanka Itoobiya madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni xilligaasi oo qorshe uu ahaa in Axmed Madoobana uu tago Itoobiya si labada madaxweyne oo isku aragti ka arrimaha siyaasadda loogala hadlo xiisada gobolka Gado. laakiinse madaxweynaha Jubbaland ayaa cudurdaar ka muujiyay tagitaanka magaalada Addis Ababa xilligii uu joogay madaxweyne Deni. ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa mar kale fariin u soo diray madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe kuna casuumay inuu yimaado magaalada Addis Ababa. hase yeeshee haatan hogaamiyaha Jubbaland ayaa si cad u diiday dalabka ra'iisul wasaaraha Itoobiya. ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo saaxiib dhow oo dhinaca siyaasadda la madaxweynaha Soomaaliya ayaa doonaya in la dhameeyo arrinta gobolka Gado iyadoo ciidamada dowladdu ay halkaasi sii joogaan. hase yeeshee madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa u xeerinaya ra'iisul wasaaraha Itoobiya inuu yahay shakhsi la safan dowladda Soomaaliya isla markaana dhexdhexaad ka noqon karin arrinta gobolka Gado. dowladda Itoobiya ayaana saameyn togan waxay ku leedahay xiisada gobolka Gado iyadoona dhawaan gobolkaasi ay fariisimo ka samaysteen cutubyo ka tirsan ciidamada Itoobiya. warar soo baxaya ayaa sheegaya in ra'iisul wasaaraha Itoobiya uu waday qorshe ku aadan in ciidamada Jubbaland iyo kuwa dowladda Soomaaliya ay si wadajir u sugaan amniga doorashada xildhibaanada ee ka dhacaysa magaalada Garbaharey iyadoo taasi looga baaqsanayo in ciidamada dowladda Soomaaliya gobolkaasi dib looga saaro. muranka u dhaxeeya gobolka Gado oo u dhaxeeya maamulka Jubbaland ee fadhigiisu yahay magaalada Kismaayo iyo dowladda Soomaaliya ayaa muddo soo jiitamay iyadoo dowladda iyo Jubbaland ay ku loolamayaan cidda maamulaysa doorashada xildhibaanada ee ka dhacaysa magaalada Garbaharey. madaxweynaha Jubbaland oo dhawaan ka hadlay magaalada Kismaayo ayaa si cad u sheegay inaan wax doorasho lagu qaban doonin magaalada Garbaharey inta ciidamada dowladdu ay joogaan gobolkaasi. hase yeeshee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa si cad u diiday in ciidamada dowladda dib looga saaro gobolkaasi iyadoo marba marka ka dambeeyana ku soo xoojinaysay cutubyo dheeraad oo ka mid ah militariga Soomaaliya. waa tahay shabakada wararka ee Garaa TV ayaa naga socotaan saaxiibayaal. wasiirka wasaaradda warfaafinta ee dowladda Soomaaliya Mudane Cusmaan Dube ayaa jawaab kulul ka bixiyay hadal ka soo yeeray gudoomiyaha xisbiga mucaaradka u ciiday Somaliland Engineer Faysal Cali Waraabe. Faysal Cali Waraabe ayaa kulan beeleed ka dhacay magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo looga hadlayay arrimaha doorashooyinka ee Soomaaliya. waxa uu ka sheegay inay qasab tahay inay saami weyn ku yeeshaan awood qaybsiga beelaha Soomaaliyeed isla markaana ay ka soo dhex muuqdaan awoodaha sare ee dalka. 75 xildhibaan baynu leenahay waa inaan ka muuqana awood qaybsiga Soomaaliya. madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha dad baa qaata inala mida oo 4.5 ka inala ah waa inaynu doorkani xoojino. taasi ayuu yiri gudoomiyaha xisbiga mucaaradka u ciiday Somaliland. hase yeeshee hadalkaasi waxaa si dhaqso leh uga jawaabay wasiirka warfaafinta ee dowladda Soomaaliya Cusmaan Dube waxaana uu sheegay in dhaqan ahaan in beeluhu ay shiraan ay tahay wax wanaagsan balse ay ka soo dhex muuqdeen kulamadaasi rag la yaqaano oo muddo 30 sano hortaagna midnimada shacabka Soomaaliyeed. wasiirku oo hadlayay waxa uu yiri dad badan ayaa ay soo weydiiyay shirkani ka dhacay magaalada Nairobi oo beelo Soomaaliyeed ay shireen. waa wax la fahmi karo in dhaqan ahaan beeluhu u shiraan qaybaha kala duwan ee bulshaduna mar walba waa ay shiraan waxa ayna la shaqeeyaan dowladooda. laakiin waxa indhaha dadweynuhu gaar u qabteen nimankii midnimada shacabka Soomaaliyeed hortaagnaa muddada 30 sano ee waliba cuqdada iyo xumaanta ku dhex beeri waayay ee laga kari waayay. walaalayaalow kaalaya oo Soomaaliya oo isku dhantaladeeda ka qayb qaata inay haatan shirarka beelaha ee Nairobi
sidii ay hamiin madow iyaga oo dhuumanaya daaqad uga soo gali lahaayeen siyaasadda Soomaaliya ee ay 30 sano curyaaminayeen ayuu yiri wasiirka wasaaradda warfaafinta ee dowladda Soomaaliya. hadalka wasiirka cusub ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliya ayaana u muuqday mid ay carag ku dheehan tahay oo looga falcelinayay hadalkii ka soo yeeray gudoomiye Faysal Cali Waraabe oo ku sugnaa magaalada Nairobi. wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cusmaan Dube waxa uu ugu baaqay xubnaha ka qayb galay shirkaasi in ay soo dhawaadaan oo ay dhinacooda ka raadiyaan midnimada ummadda Soomaaliyeed laakiinse aysan ku daba faylin kuwa si kala fogeynaya shacabka. siyaasiga Faysal Cali Waraabe ee hogaamiye xisbi mucaaradka UCID ayaa marar badan ka hadla siyaasadda Soomaaliya laakiin jawaabtani waxay ahayd tii ugu kululayd ee uga timaada dhinaca Muqdisho muddadii uu ka hadlayay arrimaha siyaasadda. dhinaca kalena haddii aynu dib ugu laabanno kulankaasi ka dhacay magaalada Nairobi ee lagu casuumay gudoomiye Faysal Cali Waraabe waxa uu ahaa mid ay beeluhu uga tashanayeen nidaamka awood qaybsiga ee doorashooyinka Soomaaliya laakiinse dad badan ayaa siyaabo kala duwan uga falcelinaya hadalkani ka soo yeeray Faysal Cali Waraabe oo hogaaminaya mid ka mid ah xisbiyada qaran ee Somaliland waxay sheeganaysaa in ay Soomaaliya ka bari noqotay muddo 30 sano ka hor xilligaana ay tahay dowlad madax bannaan laakiinse ma jiro aqoonsi caalami oo ilaa haatan la siiyay Hargeysa. qareen u dhashay wadanka Kenya ayaa isku dhiibay maxkamadda caalamiga ee dambiyada ICC ee qaramada midoobay muddo 5 sano kadib markii maxkamaddu ay soo saartay amar lagu soo xirayo isagoo loo haystay rabshadihii ay sababeen doorashooyinkii ka dhacay dalka Kenya ee dhiig badan ku daatay. maxkamadda ayaa Paul Kisheru iyo 2 qof oo kale ku xukuntay in ay ku xadgudbeen cadaaladda isla markaana ay faragelin ku sameeyeen marqaatiyada dacwad oogaha ee kiiska loo haystay dadkii soo qaban qaabiyay isla markaana maalgeliyay rabshadihii ka dhacay Kenya 2007. in ka badan 1,000 qof ayaa ku dhimatay rabshadahaasi 900 oo kiis oo iskugu jira kufsi iyo tacadiyo kale ayaa la diiwaan galiyay waxaana ku barakacay dad gaaraya 350,000 oo qof sida uu ku waramay wargeyska ka soo baxa Kenya ee The Star. maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada qaramada midoobay ee ICC ayaa ku eedeysay Mr. Paul iyo 2 qof oo kale in ay ku howlanayeen in ay laaluushaan marqaatiyada si ay uga laabtaan kiisaska laakiinse Paul ayaan arintaasi wali ka jawaabin eedeymaha ay u soo jeedisay maxkamadda. madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta iyo ku-xigeenkiisa William Ruto ayaa waxay ka mid yihiin 6 qof oo arintaasi u haysato maxkamadda dambiyada waaweyn ee qaramada midoobay ee ICC. sanado kadib dacwad oogaha ayaa ka laabtay dacwadda ka dhanka ah Kenyatta sanadkii 2015 iyo William Ruto oo sanad kadib isagana uu ka laabtay balse haatan Paul Kisheru ayaa isku dhiibay maxkamadda dambiyada dagaalka sida lagu sheegay fariin ay Twitterkeeda ku soo qortay maxkamaddu oo ku saabsan isdhiibitaanka qareenkaasi. gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir ahna duqii Muqdisho ayaa fariin u diray mas'uuliyiinta haatan talada haysa ee dowladda Soomaaliya iyadoo saacadihii la soo dhaafay magaalada Muqdisho ay ka daayeen roobab saameyn ballaaran ku yeeshay qoysaska danta yar ee ku nool magaalada Muqdisho ayaa waxa arintaasi ka hadlay gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed. qoraal uu soo saaray ayuu ku sheegay in roobka ka daayay magaalada Muqdisho uu saameyn ku yeeshay nolol maalmeedka dadka iyo isku socodka ganacsiga deegaanka iyo fayadhowrka taasi oo u baahan in si degdeg ah wax looga qabto. sidoo kale waxa uu ugu baaqay maamulka gobolka Banaadir iyo madaxda sare ee dowladda in ay ogaadaan in mas'uuliyad gaar ah ay ka saaran tahay in ay shacabka u gurmadaan gaar ahaan kuwa danta yar ee arintaasi ay saameysay. qoraalka uu soo saaray waxa uu ku yiri nimco waliba nusqaanteeda ayay leedahay roobabka mihigaanka ah ee maalmahani ka daayay
qaybo badan oo ka mid ah dalka gaar ahaan magaalada muqdisho waxay saameyn ku yeesheen nolol maalmeedka dadka sida isku socodka ganacsiga deegaanka iyo fayadhowrka waxaan alle ka baryaynaa inuu ummadda uga dhigo mid lagu qabowsado oo aanan wax dhiba gaarsiinin dadka danta yar ee ku dhaqan gobolka. Waxaan ka codsanayaa guud ahaan shacabka Soomaaliyeed in ay ka warhayaan dadka xaaladda adag ku nool ee danyarta ah una baahan gargaarka walaalnimo ee degdeg ah. dhanka kale waa dhab in adeega bulsho ee aad u liito haddaba maamulka gobolka Banaadir iyo mas'uuliyiinta dawladda waxaa ka saaran mas'uuliyad gaar ah inay shacabka u gurmadaan xilliyada adag loona diyaar garoobo ka hortagga ama sidii loo xakameyn lahaa waxyeelada naf iyo maalba leh ee ka imaan kara roobabka. gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir ayaa sheegay in uu la socdo in dad badan oo ku dhaqan caasimadda aysan xilligani ka bixi karin xaaladahani oo kale isla markaana ay waqti adag galayaan. dawladda Ruushka ayaa ballan qaaday in ay caawin doonto dhigeeda Armenia isla markaana ay gacmaha la gali doonto dagaalka ay kula jidho wadanka Azerbaijan haddii ay soo gaarto gudaha dalkaasi kadib markii xukuumadda Yerevan ay codsi kaalmo amniya u dirtay Moscow. codsiga Armenia ay u dirtay Moscow ayaa sare u qaaday cabsida laga qabo in ay isku dhacaan wadaha turkiga iyo Russia oo xulafo la kala ah Armenia iyo Azerbaijan. ra'iisul wasaaraha wadanka Armenia Nikol Pashinyan ayaa si rasmi ah u weydiistay dhigiisa Ruushka Vladimir Putin in uu bilaabo wada tashi degdeg ah oo la xiriira caawimaad amni oo uu siinayo ciidamada Armenia xilli kuwa Azerbaijan ay dhulal badan ka qabsadeen goosatada gobolka la isku haysto ee Nagorno-Karabakh. codsiga ayaa sidoo kale yimid kadib markii Azerbaijan iyo Armenia ay ku guuldareysteen inay isku raacaan xabad joojin cusub intii lagu guda jiray wada hadallo ka soconayay magaalada Geneva. madaxweynaha wadanka Azerbaijan Ilham Aliyev ayaa sheegay in aysan jirin sabab uu Ruushku u soo faragelin karo dagaalka Armenia iyo Azerbaijan sababtoo ah waxa uu yiri ciidamada yadu qatar kuma ahan amniga wadanka Russia. dagaalka ayaa muddo bil ku siman ka socda gobolka Karabakh oo ay degan yihiin dad Armeniyiina balse ka tirsan dalka Azerbaijan. ilaa iyo haatan ciidana si rasmi ah uma oga dadka ku dhintay dagaalka sida cusub uga qarxay gobolka Nagorno-Karabakh laakiinse madaxweynaha Ruushka ayaa waxa uu sheegay in dagaalkaasi ay ku dhinteen dad gaaraya ilaa 5,000 oo qof oo iskugu jira rayid iyo ciidamada labada dhinac ee halkaasi ku dagaalamayay. dagaalkani u dhaxeeya ciidamada Armenia iyo kuwa Azerbaijan waxa uu ka dhashay muran ku aadan gacan ku haynta gobolka Nagorno-Karabakh kaasi oo bilowday horaantii 90-meeyadii. labada dhinac waxay isku soo jeedinayaan eedayn ah in dagaalka midba midka kale uu isagu soo qaadayo. gobolka Nagorno waa gobol dhaca dalka Azerbaijan waxaana inta badan ku nool shacab ka soo jeeda Armenia oo taageero ka helay dawladda Armenia. hase yeeshee dagaalkani soconaya muddada bisha ah ayaa guulihiisu inta badan waxay raaceen ciidamada Azerbaijan iyadoo inta badan lagu jabiyay ciidamada Armenia iyo fallaagada gooni-u-goosadka ee gobolkaasi. ciidamada Azerbaijan ayay u suurto gashay inay la wareegaan inta badan deegaanada gobolkaasi oo markii hore ay si nabadgelyo leh gacanta ugu hayeen dagaalyahanada ka soo jeeda gobolka ee Armeniyiinta taasi oo ku qasabtay Azerbaijan in ay faragelin toos ah samayso kadib markii ay soo durugtay xukuumadda Armenia. wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamka waa naga intaasi nabaday.